السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا شاشة إذن كسو مغضي بريه أفكاغا كبرو شاشة أفكاغا هويو برشادة أفكاغا وحو مهم يهي أقون تادا قيب كمير وحو كبايا هذا الكاغا إناد براتو أفكاغا إنا أفكا لقد بنكرتو مركا وحنو كسو جرني نحويه إنو قادان إني 10 كيسا كوبات أيانو حنو قادان إنا عاوا 10 كي كوحيقي و10 كالبادها كاس oo aynu soo qaadanay qaab inta uu kala baxo hadalka ama codadka ama dhawaaqa afkeenu oo aynu niri wuxuu noqdaa shaqal iyo shibane oo ay weheliso hamsadu oo iyana ka tirsan ereyada ama xarfaha la isticmaalo qaybna ka ah hadalkeena waxaynu qaadanaynaa seenu shaqaladii baynu soo qaadanay 10kii koobaad 10kan waxaynu qaadanaynaa حرفها شبنها هي همسة همسة نقاضني همسة 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 ده وحوية وحيو قرنتا سيدا سيو قرنتا وحيكفوشا حرف كأوغدا هوستا كفوشو هالكاسي كفوليسا هالكاسي كفوليسا همسدو وحويان قيب كمدا هذا الكلام وعد كمدا شغلده وعد كمدا وعد كمدا شغلده شغلده وعود كميدا شغلده كله شغلده لانا السعودة شغلده كميدي هيوون الله السعودة sida markaynu soo qaadano da ri leeg lo go kuwaasoo dhan waxay ka mid yihiin kuwa hamsada qaata ayay la mid yihiin marka la yiraahdo hamsadu waxay hadalka ka qayb qaadataa qaybta shaqaladay raacda oo waxay qurxisaa hadalka xarfahay raacaysaa مثال مركان كسو قادنو دا اري كاستا او لبا حرف او هوريو شغل يو شبنوه هوريو وحا او معنى بوحا سميا دوشي كراعيسا سيدا دا ري لئك لو جو يو حلمدا لئكتان لبدنا كلا بغويسي هدي كلا تو لبدا لئك بنقول شغل در بسو بدل لها يعني معنى كلنا سمين لها معنى سمينسا لكن معنيه ماشي والله سمين ميسو معنى كلا سمينسا مركا همزدو قرشهدو وعينكا مركا waxaynu qaadanayna shibanayaasha shibanaha shibanaha qaadanayna oo ah sida waxaynu qaadanaynaa ba ta ja ha ka ba ta ja ha kha ba ta ja ha kha da
را را با تا جا حا خا دا را زا شا دا ع جا جا فاقا قا فاقا كا لا ما نا و ها يا iyo hamsa oo iyana la socota marka saas uu noqonayaa xarfuhu waa ba ta ja ha kha da ra sa sha da a ga fa qa ka la ma na wa ha ya iyo hamsa xarfaha afka Soomaaligu saas uu noqonayaa marka lagu dhawaaqayo shaqaladii iyo shibanahiiba saasay inuu ku qormayaan si aynu uga faa'iideysano waa inaynu gudagalnaa casharkeena iyo macnihiisa oo inoo samaynayo waxaynu markaa qaadanaynaa casharkan oo ah casharkeena waxaynu qaadanaynaa qaybaha hadalka aynu gudagalaynaa qaybaha hadalka xor weey qaybaha hadalka qaybaha hadalka
waxa qaybaha hadalka ayaynu sharax ka bixinaynaa oo qaadanaynaa hadalka xubnihiisa waaweyn waxay guud ahaan u kala baxaan 9 qaybood meesha ingiriisku uu ka yahay uu noqonayo luqadda ingiriisku 8 ay speaks ay yihiin ayaa kan waxa weeyaan afka Soomaaligu 9 ayuu u kala baxaa qaybood oo waaweyn oo mid walbaba uu macne iyo qaacida iyo xeerar afka Soomaaliga uu leeyahay marka waxaanu samaynaynaa waxa kamid ah qodobada oo kuwa kan kala ah qodob iyo magacuyaal tilmaame falkaab xiriiriye meeleeye iyo yaab waxa weeyaan kuwa kan waxaynu ku qaadanaynaa naxwaha isaga oo mid u qaadanayno si aynu u ogaano mid waliba meeshuu galayo iyo wuxuu qabanayo iyo afka qaybtu ka yahay iyo intuu saameyn ku yeelanayo ayaan waxaynu qaadanaynaa mid marka waxaynu oranaynaa qodob iyo magacuyaal tilmaame falkaab xiriiriye meeleeye iyo yaab inta ayuu noqdaa afkeena hooyo qaybihiisa waaweyn ee hadalka marka naxwo ahaan la qaadanayo marka waxaanu qaadanaynaa qaybta ugu horeysa oo ah qodob ayaynu qaadanaynaa inaga oo rabnaa inaynu ogaano war qodobow maxaa tahay maxaa se qabataa maxaa se meesha ugu jirtaa muxuu soo kordhinaya faa'iidooyinkiisa saynu ogaano waa inaynu qaadanaa qodobka inagoo raacayna qaacidada qodobka waxaanu oranaynaa qodobadu hadalka waa qayb ka mid ah hadalka qodobaduna waa 7 qodobadu waa 7 marka magac kaliya ay yihiin
marka qodobadu waxaanu qaadanaynaa oo aynu rabnaa inaynu fahanno waxa la dhaho qodobka qodobadu waa qayb ka mid ah hadalka qodobada hadalka aynu ku hadlaynay ka mid yihiin qodobadu waa toddoba asal ahaan marka qodob laga hadlaayo toddoba u kala baxa toddobada uu kala baxo marka ay magac kaliya yihiin weeyaan oo aanay ahayn jamac ama wax ka badan hal haday noqdaan qodobku ma galayo waa wixii macruufka la oran jiray ayaa loo isticmaalayaa oo kaliya ahaanta ahaa marka waxaanu oranaynaa qodobka afar waa lab saddexna waa dhadig afarta labka ah waxa kamid ah kaada gaada haada iyo aada ayaa xagga dambe ka raacaya hadalkeena saddexna waa dhadig sida taada shaada iyo daada ayaa waxay yihiin dhadig waxayna sameynayaan inay shayga cadeeyaan waxa uu yahay oo u sameeyaan macruufad shayga lagu garto inuu yahay shaygaasu lab ama dhadig midku yahay inuu inoo kala cadeeyo xarfahaas ay inoo kala sheegaya waxayna ka raacayaan hadalka gadaal ayay weedha ka raacayaan waana arki doonaa sida ay tusaale ahaan aynu u soo qaadano ayaynu arki doonaa marka waxaan sameynaynaa tusaale gaaban oo aynu ku fahanno baan ka qaadanaynaa casharka si aynu fahamkeenu u hagaago marka tusaale ahaan waxaanu soo qaadanaynaa labka oo kale labka waxaanu qaadanaynaa number 1 waxaanu qaadanay number kow waxaanu qaadanay waxa la dhaho faraska Xuseen Cawsuudi faraska Xuseen Cawsuudi labo furaha keen aan aqalka fure intaynaan tegin guriga xir guriga xir looxa tirtir looxa tirtir marka waxaanu oranaynaa marka tusaalaha labka aynu soo qaadano waxaanu qaadanaynaa ereygan ah waxaanu qaadanaynaa faras buu ahaa faras lama yaqaan wuxuu yahay waa faras aan la aqoon faras oo faras ma tahay laakiin marka kaadu raacday faraska waa mid aynu isla garanayno macruufa Xuseen Cawska u dhig waa jumladii uu buuxiyay furu ahaa awal furaha marka la yiraahdo xarafkan la qaadanayo furaha ayaa wuxuu keenay marka macruufa ka dhigay haadaasa macruufa ka dhigtay keen aan aqalka fure waxa misana lagu yiri intaynaan tegin guri buu awal ahaa guri lama yaqaan laakiin guriga markii la yiri buu macruuf noqday waana lab oo aad aragtaan oo afartii qodob mid kamid ah baa ku dhex jira xir
looxa tirtir loox buu ahaa loox lama yaqaan magac guud weeye maaha magac gaar waa magac aan la garanayn oo macruuf ahayn waxa macruuf ka dhigay aada dambe looxa markii la yiri tirtir marka labka sidaas ayuu afartaasu u tahay inay astaan u tahay la garanayo oo lagu fahmayo waxa laga hadlayo ayay inoo noqonaysaa haddii ilaahay raali ka dhigo tusaalaha kan iyagana saddexda dhadig aan u soo qaadan haddii ilaahay tusaalaha kana waxaan u soo qaadanaynaa dhadiga inanta aqalka ku jirta u yeer inanta aqalka ku jirta u yeer inanta aqalka ku jirta u yeer labo mindida soofee mindida soofee mindida soofee caasha waxa laga hayaa caloosha caasha waxa laga hayaa caloosha marka waxa la qaadanayaa ta'dan koow oo inan bay awal ahayd ta'daasu inay dhadig tahay bay tilmaantay inanta aqalka ku jirta u yeer baa lagu yiri mindi bay awal ahayd mindida awal mindi bay ahayd da'daasa misana iyana tilmaantay inay tahay dhadig inay mididu dhadig tahay waxa tilmaamay da'da da'daasa tilmaantay marka la yiraahdo caasha waxa laga hayaa caloosha calool bay ahayd calool ayaa walahayd caloosha la yiri shaadaas ayaa marka waxay dhigtay iyana inay macruuf ahaan ay u muujisay inuu waxa kanu dhadig yahay laga hadlayo marka ereyadaas baa qodob la dhahaa la isticmaalayo mid walbana tusaalaha inuu ka soo qaadanay waxay inoo sheegayaan in waxa qodobka la dhahaa uu lab iyo dhadig inoo kala soocayo oo hadalkeena kala cadeynayo casharkeena maanta halka ayuu inoo joogayaa insha Allah intaynu gaarayno casharka ku xiga